السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ودمان قيرتا مالي وناكسن هبي وناكسن قفلو بحاو تهي اسكو سوالاشو ناكسن فيديو غانو حروا إنا نكو تسو سدا أيان أورنغران كنا open source models أنا استعمالينا كمبيوتر كينا لوكال كا سأوكتي نحاجر ويب سايت لدهو هاجين فيس قفكي هرو أركي وأركي قفكان أركين so qayb leen heliin baadweynikii raba so qoladan waa sida GitHub oo kale waxa aad ugu jira nasaajid recently models ugu caansan waxay soo keeneen baadwey dhamaan models-ka open source-ga ah waa sida adiga GitHub oo kale repository-diisa soo gelin code iyo waxyaalahaas ayagana waxa la soo geliyaa wax walba ku saabsan open source models oo qof walba uu degsan karo oo computerkiisa ka isticmaali karo soo jeedna hada DeepSeek oo kale waxyaalaha kale oo muuqdo waxa kamid ah Flux oo kale kan saawtiimo midka image generation ka waayo computerkaaga localka ku generate gareyn kartaa inshallah qaybaha sawirka jeclaaleedeen adinkana ila soo wadaaga waa video ka soo sameeyna hadii oo sawir generation ka oo computerka localka aan ku sameyn karno Flux the leading ka saa waxyaali imagine face oo isticmaalayo kamid yahay projectigeena so now marka waxaan rabaa inaan idin tuso sidee DeepSeek oo kale ama Llama oo ay leedahay qoladan Facebook hadda Facebook ayagana waxay leeyihiin ama Meta waxay leeyihiin model oo open source ah salahan waxa la Llama so qaybtan asigana waa soo degsan kartaa modelkan computerkaaga ku install gareysan kartaa waxaan ka wada computerkaaga ku ran gareyn kartaa sidoo kale waxa idin tusinaa sidee u isticmaalaynaa cursor so cursor waa ka fogaanay ina dhamaan ama video ka sameey laakiin hadda waxaan ku qasbanaaday ina idin tuso sida loo isticmaalo sababta u sameeyaan waxay dadka xogaa cabsiga ka qabeen in programming iyo wixii AI la wareegi doonto waxaan rabaa marka ina idin tuso sidee ugu faa'iideysan karnaa cursor sidoo uu noqon kara awood anagana ka caabisa oosan u ahayn anaga mid lidkeena ah okay oo faa'iidada anaga productivity-geena waqti noogu bixi lahaa code-ka aad ku faraha badan oo maalmo oo bilooyin qaada lahaa si ay noqonaysaa mid oo kooban oo anaga aan ku sameeyno marka videoga maanta aad u xiiso badan yahay ila socda waa concepts badan oo xaajir cusub oo aan rabo inaan si faahfaahsan u sharxo hadii ilaahay karaal noqdo cinwaanadan iyo barnaamijyadan AI ku saabsan runtii way cusub yihiin waxaan oo dhan waxaad adduunyada aad iyo aad hada ula qabsanayeen waaye anigana ka Soomaali ahaan insha Allah waxaan rajeynayaa in gaabkaas aad buuxino oo wixii markaas oo nagu soo koray runtii casharo aad u xoogan oo concepts iyo waliba xataa arabno in si guud casharo kaliya isan ahayn products oo Soomaalida ay ka faa'iideysanayso oo barnaamijyada AI-ga iyo arrimahaas dhan insha Allah qorsheynona oo aan insha Allah isku adintoodii waxooda wadnaa so markayna dhamaadana idin la soo wadaagi doonaa so marka aan idin la wadaago sidee ayaan modelskan ku ran karey karnaa so modeladan hadda queenkan oo kale waxa soo saaray queen ma loo akhriyaa mise Qwen I don't know Alibaba iska leh ayagana dhawaanay soo saareen waa model oo asin reasoning model waxa isugu jira waaye waxay magaciisi loo isticmaalaa asigana training model soo jeedid dhowr model oo kala duwan ay leeyihiin oo maxaa ku dhahaa like 7 billion 14 billion 110 billion ugu weyn waxa kale oo ka weyn reasoning model oo DeepSeek so DeepSeek asigana ilaa iyo dhowr wuxuu leeyahay Gemini hataa Google iska la believe so Llama asigana oo 400 something ayaa heli kartaa soo jeedada view all that ho insect 7 billion ayaa meeshan ka jiro 50 gigabyte markii la soo dejinaa laakiin aad u weyn yahay macnaha xoogiisa aad u sareeyo okay so marka kan hadda ma degsan karno ma ahayno computer aad u xoogan ama arinkaas sameynayo so waxaan rabaa sidoo kale hadii VRAM badan la rabaa oo loo sameeyo marka kana waxaan soo qaatay meel kale so sala haduu RAM-kaaga 3.5 GB RAM oo kale 1.5 ka DeepSeek ka hadlooya so midka DeepSeek oo kala daaran gareynaysa computerka ana ku isticmaashay aragtid 1.5 ka oo kale hadda karaan soo deji doonaa idin tusi doonaa computerkaaga ku xiran tahay space-kiisa iyo sidoo kale RAM-kiisa su'aalaha inta badan dadka 8 GB waxa haystaan computerkaaga 3.5 something yahay 1.5 ka fuli kartaa hadii 16 GB RAM oo kale haystid 7 billion marka 16 GB kan waa ina valuable u ahaada marka computerkaaga haduu 16 yahay I believe 7 ka culeys u yahay 1.5 ka soo degso hadii 16 wax ka badan haystid 7 ka markaas macquul waa isleeyahay okay just muhiimad waxa waaye
ina aragtaan siduu u shaqeynayo oo at the end insha Allah waxaan idin tusi doonaa marka saadun ku sheegay cursor se u isticmaaleena se u dhiseena AI chatbot dhiseena oo isticmaalayo computerkeena localka midka ku jira iyo sidoo kale solutions hadda oo ay kamid yihiin chatbox kan ay idin tusi doonaa asan sida loo isticmaalayo waa already solution jira waayo su'aalaha ratid aa weydiin kartid aa isticmaali kartid olaamahaaga localka ayaa ku isticmaalaysaa so now marka enough talking aan bilowno shaqada ugu horeyso so markood waxa u baahannahay inaan la soo degno Olama so Olama basically waxa waaye running large language model isa waxaan ku rangareynaa computerkeena markood waxa soo degsanaysaa marka asiga download aan leedahay for Mac Linux iyo Windows intaba hadaa Windows tahay Mac data download hadaa Windows tahayna aan fiiri Windows badana intaad ku tusi doonaa maadaama badankiina haysteen Windows so waxaan dhihi doonaa Olama kadibna download soo dhaho markaa soo degtid waqti yar oo qaadana just installationka waa normal sida softwareada caadiga ugu shubtay waan hadda ku celinayo mar hore install gareystay so marka sida caadiga oo kale u soo dejinaa markuu soo dejiyo normally softwareada caadiga sida hadda ugu shubataan markaa software soo deji sida uu wax oo configuration oo dheeri ma sameeyna configuration yara jiro laakiin marka API ga isticmaalayna waayo waa idin tusinaa kaasna marka install gareysato automatic marka download marka dhahato modeliska tageena so modelkana tageena salan DeepSeek Llama oo kale fi Llama 2.3 something like that KWN kan midka oo Alibaba oo lahaa Gamma all lamaan wixii model sheegto midka DeepSeek coder ka asina oo code le loogu talagalay oo comparable wuxuu leeyahay GPT-4 Turbo code ku qoray oo kale okay so uncensored mid aha jira taa meesha anta fiirisan uncensored ka waxa waa daartina awe uncensored ka daarkay so uncensored ka waxa laga wadaa aan fiiriyo uncensored so uncensored ka waxa waaye Llama 2.0 uncensored which means wax ku celinay malaha wax walba oo weydii kartaa su'aalaha ChatGPT oo kale waxyaalo ku saabsan ma weydii kartid dhaqan xumaa ama anshax xumaa ama waxyaalo oo ka baxsan aqoonta su'aalahan hada dhahdo nuclear saa u sameeyaa iyo waxyaalo macnaha dadka ham galeenayo ama wax anshax ahaan fiicneen hadaa weydiis oo ku diida laakiin kan waa isticmaali kartaa su'aal walba weydii kartaa macnaha wax ka qarsan ma marka uncensored ka saasa laga wadaa so waa asii naftirka computerka ku dhex isticmaali kartaa hada dhis ChatGPT ku adkeey kaasa soo degsan kartaa su'aalaha markaas oo macquul ka dhan meesha saa weydii kartaa wax walba macnaha anything magada waxaan rabnaa waa DeepSeek so Llama asin Facebook iskale kana asina aad u weyn yahay laakiin DeepSeek hada arwanka maadaama uu suuqa galgelay asiyaan isticmaalina so saadin sheegay marka Llama marka ku install gareysato then waxaa sameynayna 1.5 kan hada ran gareena so waxaa 1.5 meeshan ka door ilaa 70671 billion a ujeeda so 400 GB waa kan madhawa kama 1.1 GB waa dhow yahay direct kan soo degso marka sida idin sheegay oo idin sheegayay noocyada iyo GB-da u baahantii marka hadda 1.5 ka igu jiro kanaan soo dejiyay computer kalena midka waxaan u maleynaa waxaan ku soo dejiyay 8 ka laakiin for now kana si isticmaalena waxa dhaha Olama run DeepSeek R1 kan intana copyinina so terminalkaaga tagaysa hubi in Olama uu rangareysan yahay meeshaan fiiri kartaa so Olama meeshaan oo ka soo gali doona marka hadda aad oo tusaalahan control V leeyahay enter dhaha so haduu ku jiro DeepSeek R1.5 ka automatically message kaaga diro ku leeyahay so da soo dhaweeyo oops oh exit magnifier okay sorry so control plus that was so dhaweena so Olama run DeepSeek R1 1.5 had iran gareysan so automatically wuxuu leeyahay send message hadii uusan kugu jirin adiga marka dumurka ugu wareys maadaama aad sameynaysid uu soo download gareena waqti uu qaadana marka 1.5 internet kaaga ku xiran tahay speedkiisa fona su'aal waxa weydiinaan what is 9 plus 9 that ho thinking marka la sameeyna because sa idin sheegay modeladan waa thinking oo reasoning model is waaye intaysan jawaabta ku siinin fikiray horta sameynayaan wuxuu ku leeyahay subject field first markood waxaan u baahanahay inaan isku daro labadan number so waxaan ka bilaabi karaa inaan breakdown sameeyo number walba kadibna tens and ones aan u wareejiyo kadibna 9 waxaa lagu sii sameynaa 0 kadibna 1 macnaha si isku darka qofka bini'aadamka uu sameynayo marka wax isku daraayo ayuu isugu daraa macnaha
okay so modaladii hore oo aanan reasoning ahayn tusaale GPT-4 oo kale ama GPT 3 point something iyo waxyaalahaas oo dhan waxay ahaayeen kuwa reasoning ma ahayn jawaabta su-aasha weydiiso isla markii webo isku soo siinaya macnaa adoonan weydiinin asoonan ka fikirin jawaabtan sax miya ama qalad ninka asaa saxay macnaa asaa is wareysanayo wuxuu leeyahay warniyo saan sax ma tahay intaadan ka jawaabin so reasoning kaanu maraas u jeedaan okay which is really really cool maadaama anaga marka developers nahay simply waa kana already modelka computerka ku ran gareysan yahay inta hubinay inuu ran gareysan yahay meeshaan ka arkaysaa waxa ku soo baxay calaamada Olama so hadaa ma keysatid the same skill ama the same step summary sa wax cusub maaha ama wax weyn ku imaanay so marka su'aasha kale imaanaysa waxa waaye anaga developers aan hay sax modelskan sidee u isticmaali karnaa anaga shaashadan in ii soo baxdo wax macna badan ii sameynayso okay أنا waxaan as a developer in application aan u sameyn karo waxaan ani aan dadka si iibi karo ama ani aan baahi kale ku xali karo ama business inaan u dhisi karo softwareadooda ugu celin karo ama oo integration aan ula sameyn karo application hore u jiro shirkad aan la shaqeynayo oo kale ama shirkadaha oo magaalada ku yaala inaa u sameysid application ayaga markaas baahidooda gaar u ah waxyaalahaas oo dhan aan u baahanahay so marka waxaa idin tusinaa sidee API by default nimankan Olama waxay ku siinayaan API ku siinayaan okay so API gaasa automatically waxa ku furan marka qayb dhan waxay leeyihiin oo aan in tusi doono qaybtaan way documentation kooda qayb API ah jirto so qaybta waxay kaga hadlayaan sidee request u dirsanaysaa sidee ayaad u sameynaysaa dhammaan model prompt waxyaalaha u baahan tahay so API gooda koowaad waxa waaye generate API/API/generate ayaa marka ugu horeysa isticmaalaysaa okay so then waxaan rabaa meeshan configuration yara loo baahan yahay configuration kaas sameynayna but intaan galin meesha saa ujeedid waxaa leedahay http localhost portgan isticmaalaan /API/generate dhesa kadib modelka sheegaysaa tusaalahan Olama 3.2 ama waxaad dhigi kartaa kadibna promptiga haddii image uu jiro oo kale tusaalahan image raacinaysaa all that stuff response yana kusoo laabanayo all the stuff oo fiirinayna tusaalahan stream oo kale hadda streamkan waxaa waaye hadda markii aan weydiiyo Olama taa ku laabto hadda markaa su-aal weydiiyo what is ama diga laga dhaho who is ama tana fiican yaanan su-aal kala weydiinin what is 9+9 marka enter dhaho saa ujeedid jawaabta lama sugayo wixii uu soo baxa isla markii uu siinayo qaybta diyaar noqoto okay qaybtan diyaar markay noqoto isla markii wixii diyaar ah oo siina ilaa jawaabta ay ka dhamaanayso okay saanu u socona streaming kana laga wadaa markii ama waxa dhigi kartaa stream false hadaa dhahdo waxay la macno tahay jawaabta ilaa ay ka dhamaato waa sugay hal mar wuxuu ku siinaa jawaabta oo dhan oo dhameystiran macnaa intuu ku tusi lahaa steps uu marooyay all that stuff marka streamkan asigana da false saas waa through ka dhigana inta badan because stream ka rabnaa kadibna response yana ku soo laabanayo so linkan inshallah again group waxaan soo dhigi doonaa qaybta hoose linkiga ina hore soo akhrisada darab temperature iyo waxyaalahan oo kale so now sidee marka API aan expose loogu sameeyaa so waxaa jira dhowr way hadda intaan anaga application aan leenahay sameysanin waxaa jira marka interfaces oo hore loo diyaariyay oo isticmaali karto okay waxaa kamid ah chatbox so kan very cool way so kale waxaa jiro Olama studio isticmaali kartaa laakiin kana igala fududaaday so tusaalahan chatbox kan loo way waa leeyahay inaad download ku sameysato computerkaaga ama inaad isticmaasho as a web ahaan inaad isticmaasho marka haddii taa computer qayb mobile wuxuu leeyahay API key and APK iyo Android ahaan aad soo degsan kartaa ama iOS telefonkaaga ku shuban kartaa xataa which is really really cool now marka as a web launch u dhahayna so as a web launch marka dhaw because ma iga baahan inaan wax soo dejiyo okay so isla marka shaashadan ku soo baxayso hadii for some like for any reason haddii uusan ku soo bixin waxaad dhigi kartaa settings qaybta waxaad dhigi kartaa chatbox AI kadibna waxaad dooran kartaa Olama API aad dooranayna so okay so Olama API markaad doorto meesha marka wuxuu ku leeyahay tutorial yar oo ku siinaa so tutorialkan ku dhufanaysaa so tutorialkan marka ku dhufato get started leedahay haddii rankan caadi u shaqeynaa markood DeepSeek iyo waxyaalahan markan muu baahni for now
chatbox saa u isticmaalna marka waxaa sameynaynaa olaamahan markaa doorto waa soo dooranay kan kadib meeshaana imaanaynaa connectionkii aa la rabaa remote inaan sameyno so waxaad dooranaysa haddaa mac wadatid labadan koobiyey terminalka past ku dhahda maadaama window aa haysano window waa idin tusinaa because intiina badan window aa haystiin saaro idinku ugu sheegay so sorry kan waaye markaa mac joogtid intaan koobi dheh qaad so haddaa window haysano markaa haysano waxaan u baahannahay inaa environment variableskan soo update gareyno so waxaan tagaynaa windowska again waxaan raadinaynaa environment variable so edit environment variableskana ku dhufanaynaa for your account kadib waxaa leedahay new kadib new markaa dhahdo aan already waa samey lakin hadda stepka idinku tusinaa mar kale so kan soo koobiyey olaama hostile iyo valuegan 00 ga soo qaad so meeshaana kusoo laabanaysaa waxaa leedahay meeshaan soo koobiyey olaama host koobiyaa leeyahay so control v already waa sameeyey control v meeshaan valuegan waxaa gelinaysaa so 00 gan iska ilaali komadaha soo raacinaya 00 bes soo dheh so meeshaan imaanaynaa kadibna waxaa leenahay control v again okay kadib okay aa leedahay taas markaa marto okay dhahdid an already waa kana oo ii samaysan yahay hal step kalaa dhiman step kaloo dhiman waxaa waaye olaama origins kanaasan soo koobiyeynaynaa kadibna star ah soo qaadanaynaa so meeshaan waxaa leenahay new agina asigana control v aa leenahay meeshaana star aa gelinaynaa bas kadibna okay aa leedahay so intaas markaas sameyso olaama inaa stop dhahdeed isku day waa ilaaw taas inaa idin sheego intaanan environment variable ka sameynin quit dheh olaamaha okay quit garey ka bax kadib dib start u leh olaama dheh markaa start dhahdo so automatically marka start iyo ku dhaha waa kana waxaa markas dib ugu laaban kartaa DeepSeek oo kale inaa fulisa daarteed lainkan soo koobiyey waxaa ku laabataa terminalkaaga kadib waxaa dhigi kartaa control v enter dhigi kartaa soo rangareynaa automatic oo ku sameynaa so markan waxaa waa weli midka shaashada waa so API inuu shaqeeyay in kale see ku ogaaneynaa waxaa tagaa qaybta oo maxaa ku dhahaa hadda meeshaan already waa ku sheegaan API computerkaaga IP addresskiisa waaye so for now IP addresska oo computerkaaga kadib waxaa raacinaysaa port numberkan okay so IP address computerkaaga see ku ogaanaysaa waxaa samey kartaa I think window maxasuusto walaa IP config ma la jirin IP config I believe yes so local hostigaaga kan IP version 4 kaaga IP version 6 ka ethernet iyo adapterka waa for now and the reason for this wuxuu yahay sheeg hataa even hataa inta marin hataa waxaa samey kartaa chatboxka ku laaban kartaa asaa arrinkan ku xalinayo so settings dheh meeshaan waa kana asaa ku siinaya kana isticmaali kartaa 107 markaas maadaama local host aad joogno now markii aa furo marka olaama API aa dhaho meeshaan isla markii markaa furo waxaa iisoo galaayo modeliskeyga DeepSeek R1 markaad usoo kusoo galin isku day inaad restart dhahdid sometimes aa laga yaabaa so restartyaas markaa dhahdid waxaa doorataa inta modelo kugu jirto kuu sheegi doonaa so R1 maa ku jiro maxaa ku jiro alaama aan dhaho iyo QW ama gema wixii markaas u hadana for now DeepSeek isticmaalona so safe aa leeyahay now marka si beautiful igu sheego haddaa image hataa la rabo image ahaana u diri karaa anything like that so haddaa dhaho what is 9 plus 10 oo kale haddaa dhaho so thinkingka u sameynaa kadib macnaha waa offline computerkaaga dhexdiisa modelkan datadan adiga waxaa laga soo akhrinayaa computerkaaga haddii aadan ku qanacsanaysaa hore idin kugu sheegay chatboxkan qayb wuxuu leeyahay aad soo degsan kartid computerkaaga kasoo dhex degsanaysaa okay download aad dhigi kartaa as software ahaana usoo degsanaysaa saa ujeedid thinking iyo wax walba sameynaya ugu dambeyn wuxuu leeyahay 9 plus 10 equal 19 waay okay so intaan jawaab dheer ma aha laakiin modelkeena yar magaciisi fikirkiisi wixiisa inkastoo hadda OpenAI hadaabiin hore waxaa arkaya Sam Altman CEO-ga wuxuu soo dhigayay waxaa isku dareynaa modeliska thinkingka iyo waxaa ilaan hadda wax walba oo iska fikiraa okay hadda kan waa qari kartaa oo soo bandhigi kartaa wax walba fikir oo siinaa
so marka waxay dhahayeen waxaan isku dayaynaa in wixii fikirka u baahan oo waqtiga u baahan in waqtiga aasiin waxaan u baahnayn isla markii inaan sheegi karno marka hadda laakiin 9+10 oo wuxuu qaadanayaa dhowr second uu qaadanayo macnaha wuu ka fikiraya okay so marka taasaa macnaha inaa ka hortagnaa rabnaa ay dhahayeen GPT-5 marka soo baxay wax noocaas ay sheegayeen so yeah so enough talking now marka waxaa haysataa model computerkaaga kugu jira aadan internetku aadaynin oo ku rangaraysan isla computerkaaga dhexdiisa ku rangaraysan ayaa haysataa okay so su-aasha marka waxa waaye waxaan rabaa ilaabay API yaaro marka meesha soo marayo so settings ku laabo so API intaan ka soo koobiyeyso intaas soo koobiyeenayna meeshaan imo waxaan leenahay control V kadibna /API kan waxaa ka keenaya qaybtan oo documentation kooda saa ujeedid localhost ama 107 waxa artid so modelkan isma bedelin API kadibna generate dhehna so laakiin dhibka jiro waxa waaye kan waa post request waa okay post request ina lagama sameyn karo saa ogtiin hadda generate raaciyo waxa u baahannahay tool oo post request oo sameynaa saa ujeed page not found oo soo baxday which is fair so because post request inta laga bedeli karo waxaa u baahanaa marka tusaale inaan haysano Postman oo kale ama anything like that let's say the Visual Studio Code inuu igu jiro aan hubiyo by the way kan isticmaali aniga inta badan computerkan adiga hadda cashirka ku tusinaya aan isku dayo computerka mag inaan u wareegto because saa iran garaysan aan fiirina inuu ran garaysan yahay in kale the same step why saa ujeed waa ran garaysan yahay waxaa sameynaa marka Visual Studio Code soo ran gareynaa ama Postman I believe inuu igu jiro so Postman VS Code ko igu dhex jiraa Visual Studio Code soo ran gareynaa okay so qaybtan waxaa sameyn kartaa extensions ka tagaysaa waxaa raadinaysaa VS Code okay VS Code VS Code Postman waaye so Postman raadinaysaa an already waa install garaysan waa kana so install dhaxanaysaa marka install garaysan meeshaan uu ku soo gali doonaa hadda shaashadeeda weyn qaybta waxaad dooran kartaa Postman okay ama meeshaan uu ku soo fuulaa ama waxaad sameyn kartaa qaybta kore geysan kartaa si uu meel sare kaaga soo maro laakiin calaamada waa marka so hadii kana new request yaadayna marka waxaan cancel okay so waxaan cancel so waxaan leenahay new request so new request noociisu waa post kadibna waxaan gelinaynaa so localhost API generator dhehna qaybtan body marka muxuu u baahan yahay waxaan ka dooranaynaa qaybtan rowga qaybtan text waxaan u bedelaynaa JSON so qaybtan marka waxa ku qoraynaa wax loo baahan yahay so now that in celiyo documentation kooda waxay lahaayeen hadda marka aan rabnay inaan ogaano waxaan laga rabaa sidaan oo generator dhehna API generate waxaan laga rabaa modelka waxaa laga rabaa promptiga fernando labadana soo koobiyeyna modelka promptiga ana laga rabaa so waxaa ku laabataa Visual Studio Code waxaa fureynaa string JSON ki ama paste data ku dheh so lalama ma anaga modelka isticmaalno waa DeepSeek R1 waaye waxaan koobiyeyna intana koobiyeyna DeepSeek R1 1.5 billion intaas koobiyey so koobiyeyna control V leeyahay then format that and beautify okay then run it down model DeepSeek R1 not found okay so yeah sorry ani kan mag waxa ku isticmaalaya I believe midka 8 billion ka so adiga markaaga R1 ka oo 7 ama 1.5 billion ka koobiyeysa qaado okay ani marka 1.8 inuu yahay umaleyna meesha waxa dhahaa waa bedela aday just model kugu jiro waaye anada 8 billion ka umaleyna inuu ii download garaysan yahay send dhahaa there we go yes now as you can see model request ya isoo laabtay created at so preview beautify dhaho kan marka muxuu sameynayaa saa ujeedid requestiga macnaha maadaama oo wuxuu isoo saaraya meeshaan saa ujeedid the feasible response macnaha streaming furan okay saa ujeedid scattered light project streaming furan streaming kana ma format gareysna waxaan sameyn kanaa marka meeshaan waxaan ku laabanaa waxaan leeyahay stream waxaan sameysaa false hal mar soo noo sii hal request oo dhammaystirnaa karabnaa okay
hadda ileen wuxuu sameynaya very interactive hal qoraal uu sheego inta markaas diyaarka ah tusaale meesha wuxuu leeyahay sky appears blue because ileen waxaa weydiinay why is the sky blue adane so jawaabtiisa waxa waaye appears blue because of something macnaha hal xabo ku siinaa waa streaming waa so streaming mar oo false dhaha sunday dhaha marka sunday marka dhaadid kan hal mar ku siinaa kan saa ujeedid response muxuu siinaa thinking markuu sameeyo so thinking badan ma qaadanin so phenomenon of the sky appearing blue is the result of wakana marka response toos inta uu qaadanaysa okay isn't that cool so into context uu qaatay reasoning ka done through why okay so total duration ka uu qaatay low duration ka uu qaatay prompt eval counting prompt eval duration ka meeqa eval counting evaluation or something I believe you know very very nice way now that for su'aal kale hadaa weydiiyo what is 8 plus 8 oo kala dhaho so false why again was sugina false kan stream ka waxa waaye hal mar jawaab isku xiran oo siinaa laakiin application ka dhiseen oo kale kan true ka dhigana sababtoo markaas user inaad tusinaa rabnaa wax socdo iyo markaas wax dhacayo okay so waxaan dhahay I recognize that both number in addition can thinking why so illa meeshan ka bilaw thinking ka bilaw illa inta uu xiran meel ku xiraa thinking ka illa meeshan intaan thinking why kadibna sure so jawaabtu waa kana marka okay so I think super amazing way in a model noocan ah haystid oo hawshan ku qabanayo oo local kaagana ogaada computerkeena ku dhex jira ma baahni ina aadno meel kale ina aadno ama aan magaciisi oo si kor aadno ma baahni warkaas macnaheedu so yeah I think inta ugu muhiimsan waa cover gareeyay so modelka basically hadda kadib waxa u baahan tahay DeepSeek haduu yahay DeepSeek waa model isa ku laabanaysa so laamaha daarti laamaha gali kartaa 70 billion asigada latest macna badana kuwiis wax xoogan yihiin isticmaali karno intiisa badan 40 GB 6K 70 billion ay ka kacooyin marka waxa u baahanahay mid aad u xoogan marka hadda kaas DeepSeek hadda aan oo fududa so DeepSeek sameeyay so laakiin any model sana u fuli kartaa inshallah in the coming videos waxaan ka hadli doonaa Hugging Face asigan sida uu isticmaali karno qaabka uu install gareyn kartid computerkaaga okay so taas marka waxay ahayd sidee set up gareynayna DeepSeek oo local model keena so next video waxaan idin tusi doonaa sidee cursor aan u isticmaali karnaa oo naga saacidi karo application-kan API-gan inta u sheegno kadibna adhana application-ka API-gan isticmaal waxaan oo dhistaa chat model oo API-gan la falgareynayo oo aan su'aal weydiin karno oo na tusi karo streaming-ka response-ga all that stuff so cursor saaxiibkeena waa cadowgeena maahan waxaan rabaa marka inaan idin tuso video kala ka dhigayna because kan uu dheeraaday waxaan isdhahay hal video kusoo koob laakiin ma kusoo koobi karaa umaleynaa waxaan u baahanahay another video inaan ka fikirno because muhiimada kala lumayso markaas video gaar u baahan yahay snaftikiis cursor inaan idin tuso best practices sida ugu fudud oo isticmaali kartid tibiska oo baahan tahay because almost waxaan umaleynaa hadda waxaan isticmaalayaa 6 bil la soo dhaafay cursor si full ah u isticmaalayaa okay so hawlo badan aan ku fududeysta so adinkan si ugu fududeysan kartaan so next video ay arrinkaas fiirinayna bye for now assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh so any ideas or ahaysan let me know comments maalmaha xogaar waa yaraaday so fikradiina way yaryihiin aan ogaana marka fikradiina iyo waxa markaas aad isleediin aad ma santiin waa MC idin leh assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh